shirkan weyn ee muhiimka ah furitaankiisa waa runtii horumarka la taabanaya ayay ka mid tahay iyo wadajirka howluna sideedaba iskaashi iyo isu tegid kama maaranto. waxaan rabaa inaan runtii aan idin cadeynan aad iyo aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka shirkan muxuu ahay ururka bangileyda ama bangiyada Soomaaliyeed iyo dadka maaliyadda ka shaqeeya ay leeyihiin waa wax aad iyo aad u weyn. waxaan sidoo kale bogaadinayaa hay'adaha dawladda iyo ganacsatada iyo dhammaan dadka ka soo wada qayb galay meeshan jooga ee muhiimadda siinaya arrimaha bangiyada iyo bangileyda insha Allah. xaaladeena bangiyada iyo maaliyadda guud ahaan taariikh dheer oo tadawura oo sida hadda xildhibaan Odawaa u sheegayay waayihii la soo maray markaad gadaal u fiiriso iyo maanta meesha la jooga aad runtii aad iyo aad ku farax gelinayo. waxaan soo marnay teeramkii ka horreeyay madaxweynaha 2013 bangiga dhexe ee Soomaaliya markaas uu ana qaaday oo bilaabanayo furmay. waxa ugu horeeyo oo bangiga u rabno waxay ahayday Swift code in bangiga dhexe loo helo bangiga dhexe laftiisa in loo helo. waxaan gaarnay meel la yiraahdo war wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya 4 bilood ama 5 bilood inta jooga biri baxayo annaga waxaan mas'uuliyadooda qaad saxiimad ay madaxweyne adaa saxiixaya warqada soo qoraysa kadibna warqadan foomkan kalena adiga saxiixaya. marka sidaas aan ku saxiixnaa Swift code-ka ugu hore bangiga dhexe lagu soo siiyay. maantana arrimaha maaliyadda iyo bangiyada iyo shuruucda iyo waxa iyo wasiir maaliyadeed ha ahaato ama gudoomiyaha bangiga dhexe ha ahaatee meelaha lagu saxiixa iyo shararka lagu qabtay iyo kama warqabo. marka dalku meel inuu ka yimid oo meel kale oo maanta marayo taasaa daliil u ah kalsoonidii caalamkana ay dib u soo dhisantay oo maanta Soomaaliya institutions dawladeed oo lagu kalsoon yahay inay leedahay. marka maanta meeshan joognaa laakiin meeshii aan u socono weli maanaan gaarin. dawladnimo waa qawaaniin iyo nidaam. qawaaniintii dawladdu waa ka shaqeynay inay samayso kuwii hore u jiray dalkan qawaaniin la'aan ma ayna laakiin waqtigoodii yaa soo dhamaaday oo in dib u eegis lagu sameeyo ayay ahayday. waxaan rabaa bangiyadu in ay open noqdaan cabsida iyo shakiga iyo waxa inay yareeyaan. waa run marka la yiraahdo lacagta ma investigareeyaan dadka ma siiyaan marmarka qaarkood qawaaniintii iyo nidaamkii difaaci lahay ayaa laga yaabaa inuu maqan yahay ama aanu weli xoogaysanin laana bangigan lacagta uu hayo oo dad leeyahay markuu bixinayo oo qof kala siinayo ama company kala siinayo si uu maalgashi ugu sameeyo oo wax ugu dhiso oo tartiib u soo celiya bangigu waa inuu haystaa guarantee lacagtaas inay soo noqonayso. hadday soo noqon weydana bedelkeeda wixii lacagta bangiga iska mala dada u dhiibtay shalay hadday soo noqon weydana bedelkeeda marka hadduu ka cabsado inayna soo noqonin hadday soo noqon weydana oo maxaa si meel uu ka waxay aanu helaynin inaanu waxba bixinin oo maxaan ku iraadaay oo bangiga markaa noqdo bartiis yaqaan bari uma korato. carabna bangigu intii uu marna risk free ma la ahaanayo mar walba element oo risk ah wuu jiraa. intii la yareyn kara riskiga ha la yareeyo unbaa yaa laga hadlaa. cashuurta dawladdana ha la bixiyo. dawladdu ma shaqeyn karto cashuurta bangiyada iyo hay-adaha isgaarsiinta runtii waa ammaanaya wax walba ku ammaanaya cashuuraha qaarkood waa ku ammaanaya sida ay hormuudka uga noqdeen laakiin meesha ceebta ku harsan tahay waa intee mutaqaan ganacsatada jambarka iyo dadka wakiilka yahay iga bixi muxuu ahaa emergency-ga numberkiisa ee numberkan kale lacagta igu soo tuur waa tuuganimo. yad lacagta ka dhowraysa lacagta u diidaysa ammaanka haddii qarax xagga ka dhaco hal dawladdu maxay qarax u xili wayso war dawladdu maxay qarax ku xilisaa adaaba muxuu ahaa tubadii yaradoo ay ku neefsanaysa oxygen ka xirtay waa see muxuu ahaa u xaynay. ganacsatada Soomaaliyeed maanta waxaan rabaa halkan baaqa u jeeday waxay tahay waa dambi qofkii lagu qabtan ciqaabo mutaysanaya qaanuun dalku u yaalaa jibiyo haysaa ma furi kartid ma bedeli kartid emergency-ga meelan ahayn lacagta kuma qaban kartid. maqaayad yar haddaad tahay supermarket haddaad tahay bangi haddaad tahay waxaad doonta aho
laba gacmood oo lacagtoodu isdhaafaysaay hadday timaado systemkaas waa in la dhex maraa lacagtana waxaa laga qaadayo ogow adeegaa tahay oo qofka soomaaliga wax gata waa caagaas biyaha oo mooysaxada ah qofka gatay waa waxa baadka laga rabay adiga ma ah waxaan taaganaha marka war waxaan hadda shaygan hadduu $100 haddaad ka bixinaysid $105 qofka ka qaad u sheegna weliba aan ka qarin markaad $100 badeecada suuq muga inta ka qaadiyeyso aad $105 $110 ka dhigayso qofka ma u sheegtaa ma maslaxda wax ma dhahdaa suuqiyaa qaadiyoobayo saan waayo saanna dhahdaa shaygan $100 uu joogo $110 maanta jooga war intaan ganacsatada intaan ka rabno waa intaa dadka qofka Soomaaliyeed biyaha cabayo iyo midka saxanka bariiska ama qaayad inta soo fadhiista ka cunaya iyo midka koobka kafeega cabaya waaye waxa lacagta laga qaado waa adeegi inaad adeega noqoto adiga oo fududeeyo noqoto waaye waxa diidanta lacag jeebkaada ku jirto dawladdu uma socoto sideedabana ganacsatada cashuurta ay bixinaysa lacag jeebkeeda ku jirta ma ahan markii wiishka midka qaadayo iyo xamaaliga alaabta qaadayo dekada jooga iyo baabuurka soo qaadayo taana lacagtooda intaad u xisaabtaad ku dartaa markaad badeecada gelaysid tanna waa ku dartaa war adigu hakrashadaadu meeshaasay gaari bal eeg haddana eedaad qabtaa biyahan magaalada buuxo oo jidka laga mari lahayo waa maxay maxaa baabuur xagga ugu qarxay maxaa muxuu ahay shabaab ii handadaya dawladdu may qabato dawladdiina sidaasaad ula macaamilaysa gelaysa dadka Soomaaliyeed dawladda ha lala shaqeeyo dawladda ha lala shaqeeyo si aan cizi iyo karaamo u yeelano oo aan adduunyada ula macaamili karno waxaa ugu daran ganacsatadu waa dad reer magaalo inta badan safro oo dibadaha tago Nairobi hadduu tago wax kasta ogol yahay ganacsi uu ku leeyahay Nairobi intana mid uu ku leeyahay kan Nairobi uu ku ogol yahay 10 nooc cashuur oo qaali ah waliba uu ka ogol yahay inuu ka bixiyo maqaayi xamad ku timaad markaan ku cunana 5% aan diidana aan la dhuumanaya aan ka hadlayo aan ka qeylinaya waxaan leeyahay marka qaarkood aqliga noo soo noqdo walaalayaal annaga is xakranayno annaga isku fadhino annaga is waxaynayno ha dawladdu waxa lagu eeday karaa lacagtii qaada musuqmaasuqa ku jira inta ku jira yes laakiin waa daba taagan tahay dawladdu waana eedna qabato in ayadana sideena rabnaa in laga shaqeeyo oo fartana loogu fiiqo laakiin dawladda canshuurta hala siiyo hala siiyo ma hala fududeeyo ganacsatadu waxaan ka rabnaa waa fududeyn emergency-ga ma inta igu soo tuur ma aha waa lagu daba socdaa maalintii ay noqotana waa lagu soo qabanaa waana laga daba tagaa laakiin maxaa ka fiican inaan bal lagu soo tuumin lagu soo daba kicin iridii in askari la joojiyo qofka ka soo baxay ka rasiidkaagii la yiraa qof inuu maqaayad inta tago saxan bariis cuna faraha inta tirtirto lacagta ay xagga ku tuura kan iigu tuur la yiraahay qofku meesha laga soo katiinayo EVC iigu tuur iga dhaaf emergency-ga inta yiraahdo meesha laga soo katiinayo maxaa karaamo iyo sharaf ku jira qofka cashuurta la dhumanayo ha isku qancinin waxa tuuga tahay magac kale ma leh tuuga tahay khaa'inaad tahay dalkaad khiyaano haysa hebelna ma khiyaano haysid mid xukunka jooga iyo mid wasiira iyo mid cashuur qaada iyo mid madaxweynaha ma khiyaano haysid waxba kama bi'iyo haysid waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in ay arintaasi ay aad iyo aad ugu baraarugsanaadaan dadka qofka Soomaaliga muwaadinkaana war waa adiga waxa cashuur ku bixinayo ha ka ogolaanin ninkaan mugu ku yahay EVC iyo tuur ha ka ogolaanin numberka emergency-ga meesha ku dhagan yahay waa la wada garanayaa kaas isticmaal waraa raalli ahaw muxuu ahay lacagta meesha leedahay ku bixinayna hal yiraahdo marka dhammaanteen si wada jir ah aan uga shaqeyno inaan economic transformation ama isbedel dhaqaale dib u habeyn dhaqaale dalka inaan ka wada dhaqan gelino oo gacmaha isqabsano aan waxayno aan ka wada shaqeyno hadii alla yiraahdo dalku sidaas ayuu noogu degi karaa nooguna horumari karaa nabadda iyo dhaqaalaha ayaa horeeyaa la yiraahdo dhaqaalaha ma horta la helaa markaasaa nabad saasay ku imaataa mase nabadaa inta la helaa dhaqaale la raadiyaa nin baahan nabad ma laga keeni karaa nin baahan nabad ma laga keeni karaa nabad ma loo baa in uu nabad laga helayo
faqrigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha oo dadka deganaanshiya la-aanta iyo maxaanku irahdaa colaadda iyo dhibaatada keena ayay ka mid tahay. degaanada nidaamka dowladdahi oo weli uu daciifka ku yahayna xaaladahooda haddaba sida ay yihiin waad garanaysaa. waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay dowladda ku garab istaagaan arrimaha dhaqaalaha oo ay dowladda ka qusayso cashuuraha. dowladduna dadka inay furas badan oo dhaqaalo loo abuuro inay helaan dadka ayay iyadan u taagan tahay oo ay ka shaqaynaysaa haddii ala yihaaho. ururka bangiyada soomaaliyeed iyo dhammaan bangiyada soomaaliyeedna waxaan leeyahay guuleysta. shaqada aad haysaana shaqo aada iyo aada u fiican oo raalli laga yahay waaye. waxaan rajaynaynaa sanadka dambe anagoo intaan kasii fiican oo wax kaloo maanta aanan haysanin intaan helnay ku faanno ama caqabad maanta taagneyd intaan ka gudubno dhihi karno sanadkii hore caqabadan waa kasoo aad taagneyd waa ka gudubnay aan dhihi karno oo aan ku faani karno. aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin. shirweynihii bangiyadana waa noo furan yahay. asalaamu calaykum.